mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh ilaah mahadiisa maanta waxaa inoo xirmaya kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida aad la socotaan kalfadhigan lixaad oo maanta inoo xirmaya wuxuu ka duwanaa kalfadhiyadii hore iyadoo shuruucdii iyo howlihii kale ee hortibinta lahaa oo aan qorshaysanay in golaha ay waajibaadkooda dastuuriga ka gutaan kalfadhigan lixaad shuruucdaas oo asaas u ah dibudhiska dalka kobcinta dhaqaalaha dalka horumarka dhanka adeegga bulshada waxbarashada caafimaadka dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha hirgelinta nidaamka axsaabta badan iyo nidaam doorasho oo ay ku kalsoonaan karaan shacabka Soomaaliyeed uu golaha waajibaadkiisii dastuuriga ka gutay ilaah ayaa mahadaasi iska leh shuruucda hindis sharciyeedyada oo madaxweynaha uu soo saxiixay ayaan ku hormaraynaa hindis sharciyeedka heshiiska caalamiga naafada madaxweynaha uu soo saxiixay sharciga dhismaha gudiyada la dagaalanka musuqmaasuqa madaxweynaha uu soo saxiixay sharciga dakhliga madaxweynaha waa saxiixay warbixinta xisaab xidhka 2017 madaxweynaha waa saxiixay hindis sharciyeedka leedatirka siyaasiyiinta Soomaaliyeed weli lama saxiixin madaxweynaha ayuu la yaalaa heshiiska midowga Afrika badbaadinta dadka ku barakacay gudaha Afrika madaxweynaha wuu saxiixay heshiiska quseeya ilaalinta hidda dhaqameedka iyo midka dabiiciga madaxweynaha wuu saxiixay heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan madaxweynaha wuu saxiixay hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga madaxweynaha wuu saxiixay hindis sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda madaxweynaha waa saxiixay hindis sharciyeedka petroolka madaxweynaha waa saxiixay heshiiska ka mid noqoshada hay'adaha damaanadda maalgashiga ee tarafyada badan madaxweynaha wuu soo saxiixay wax ka beddelka sharciga furdooyinka madaxweynaha loo diray wax ka beddelka sharciga iibka qaranka saas oo kale madaxweynaha ayuu la yaalaa hindis sharciyeedada hadda oo aan gudbin doono oo maanta la ansixiyay waa hindis sharciyeedada dib u eegista sharciga saxaafadda hindis sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida hindis sharciyeedka istatistikada Soomaaliyeed ama hindis sharciyeedka tirakoobka qaranka hindis sharciyeedka duulista rayidka hawada hindis sharciyeedka tayadhowrka intaasna intii maanta aan ansixnay iyo saddexda kaleba madaxweynaha kuwaana maanta loo gudbin doona gadaal iyo jiraan waxaan u malaynayaa sharciga doorashooyinka wuu ka duwan yahay shuruucda kale marka si gaar ah in loo xuso ayuu mudan yahay shuruucdan kale waa muhiim laakiin kaas dardaar kale aan rabnaa inaan raacino marka shuruucda kale oo ka soo noqotay aqalka sare aaday u badan yihiin marka dhammaan ma akhrin karno laakiin inaad la socotaan waana la qaybin doonaa waa la idin qaybin doonaa inta kale oo hartay sharciga doorashooyinka qaranka wuxuu ka mid yahay shuruucda ugu muhiimsan kalfadhiga lixaad markuu furmayay waxyaabaha aan ballan qaadnay ka mid tahay in golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed uu diyaarin doono sharci doorasho qaran oo 2020 doorasho lagu aado ama axsaabta siyaasadeed ay ku tartamaan ama wadanka doorasho uu ku aado runtii xildhibaanada sharafta leh gaar ahaan guddiga kumeel gaarka ahaa ee doorashada sharciga aan u dhiibnay sharciga doorashada aan u dhiibnay aadan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka oo runtii ay tahay in aad loogu farxo
in uu ku ansixiyey 171 cod uu ku ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka taasina waxay tusaysaa in xildhibaanada halkan fadhiya ay diyaar u yihiin wadankooda inay horumar gaarsiiyaan ay ka fikirayaan wadankooda mar walba isbedel inuu ka dhaco oo macnaheedu uu yahay isbedel horumar sameynaya sharciga markuu soo noqday maantana aadan ugu faraxsanahay oo dhamaantiin waa ku faraxsantiin in golihii shacabka iyo aqalka sare wada shaqeynaya oo ayagana dhinacoodii ay soo ansixiyeen guddigii halkan ay noo xaqiijiyeen nuxur inaan laga soo bedelin oo badi qoraaladii sidaan u dhignay ayagana ay ku soo ansixiyeen waxaan rabaa markii inaan sheego shaqooyin badan aan noogu dhiman sharcigan doorashooyinka kalfadhiga toddobaad ilaahay nafta hadduu noo gaarsiiyo oo aan caafimaad qabno shaqada noo taalla way ka culus tahay shaqooyinkii kale oo noo yimid waa la socotaan sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay hay'adaha federaalka in lagu doorto waxaa loogu talagalay in lagu doorto labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha markaas kadibna sida qodobka 89aad uu sheegayo baarlamaanka uu doorto madaxweynaha waxaan rabnaa marka sharcigan maadaama federaalka loogu talagalay waxaa xaq u leh baarlamaanka federaalka inuu ka shaqeeyo sharcigan ma aha waad akhriseen waa ansixiseen sharci loogu talagalay xildhibaanada ama mumaathiliinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ma aha sharcigan waxaa lagu dooranayaa madaxweynayaashoodna laguma dooranayo ayagana laguma soo dooranayo sharcigan waxaa lagu dooranayaa golaha shacabka iyo aqalka sare sharcigan markaa fiirisaan waa qodobka 64 iyo 72 uu ka kooban yahay labadaas golaha shacabka iyo golaha aqalka sare doorasho dadban ay ku imaan jireen tii unbaa waxaa la leeyahay dadbanaanta ka soo noqda ee jidka hala maro marka waxaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay wadankan horumar la taaban karo oo haday noqon lahayd shuruucda lagu horumarin lahaa inuu diyaar u yahay marka mar labaad waan idin mahad celinayaa waxaan ugu talagalnay kalfadhigan in xaflad loo sameeyo haddii alla idmo maalinta khamiista oo berrita ah habeenkeeda jimcaha uu soo galayo xaflad aan u sameeyno oo aan ku gabagabeynayno kalfadhigan hadda noo xirmaayo isla markaas waxaan idin sheegayaa waad la socotaan xoogaa yaraan dhaqaaqnay bisha hadda waxaa ka dhiman taqriiban iska 10 maalmood aan dhahno muddada fasaxa aad ku jirtaan waa bil kaliya ogaada hal bil fasaxa ku jirtaan abriil horaanteeda ama kowdeeda kalfadhiga toddobaad wuu furmaya ka hor waxaan ka shaqeyn doonaa shaqooyinka xafiiska ayaan ka shaqeyn doonaa tallaabo kastoo annaga aan qaadayno inta aad fasaxa ku maqan tihiin gurubyaa jira ama xogeeyaha golaha shacabka asagaa laga rabaa mar walba inuu wargeliyo xildhibaanada oo message u diro waxaa la qiibiyey maanta hindis sharciyeedka dib u eegista iyo kaabista sharciga xisbiyada siyaasadda dalka kaasna waxaan jecelnahay markaan soo noqono haddii ilaah nafta noo gaarsiiyo in kan ugu horeeyo annaga aan ka doodi doono oo noqon doono marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahad celinayaa waxaa maanta noo xirmay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka hada wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum